Wiil iyo gabar ayaa ahaa saaxiibo aad isugu dhow. Iyagoo wakhtigooda oo dhan ku qaadanaya in telefoonka ku wada hadlaan muddo dhowr saacadood ah. Marka ay wada hadlayaanna waxa ay u ekayd in aanay dunida waxba ka jirin oo ma dareemaan wax murugo ah daqiiqadahaas ay wada hadlayaan. Maalin maalmaha ka mid ah, inantii ayaa fariin u dirtay wiilka kamana uusan jawaabin, taas oo ahayd mid aan caadi ahayn. Mar labaad ayay isku dayday balse ma aysan ku guulaysan. Ugu dambayntii way wacday balse wax jawaab ah may helin. Maalin dhan ayaa ka soo wareegtay, wiilkana lagama helin telefoon iyo qoraal toona. Gabadhii waxa ay bilowday in ay ka warwarto in ay hubaal tahay in ay wax khaldan yihiin. Habeenkii labaad, inantii waa ay seexan weyday oo habeenkoo dhan waa ay soo jeeday, iyadoo welwel iyo warbahaar la soo jeeday. Kadib ayay garwaaqsatay in uu wiilku dhab ahaan wax qiimo ah agtiisa ka lahayn. Subaxdii dambe si kastaba ha ahaatee waa la soo wacay. Wuxuu ahaa wiilka. Aad bay u faraxsanayd oo isla markii ayay telefoonka qabatay. Sheekadan ayaa dhex martay. Wiilkii, haye. Gabadhii, aad baan ugu faraxsanahay in aan ku maqlo, maxaa dhacay? Wiilkii, anigu waan mashquulay, waxa aan kuu soo wacaya ayaa ah in aan dib dambe aan isku maqli doonin. Gabadhii, maxaad ula jeedaa, waa maxay sababtu? Wiilkii, waan ka xumahay, kuma sheegi karo, nabadgelyo. Kadib wiilku wuu jaray wicitaankii. Gabadhu ma rumaysan karto, waxay la mid tahay inay weyday qayb iyada ka mid ah jirkeeda. Way murugootay, ilmo ayaa ku daadanayay wejigeeda. Way luntay oo ay wareertay. Waxay dareentay jab, murugo iyo kelinimo. Waxay ku taagan tahay saqafka sare, waxayna rabtay inay booddo. Isaga maxaa ka qaldan, muxuu sidaas u yeelay? Sidaas ayay lahayd iyada oo saqafka sare saaran. Kadib waxay go'aansatay inay isku daydo oo ay dib ugu guulaysato. Waxay wacday nambarkiisa. Gabadhii, hellow. Wiilkii, maxaad iigu wacday? Gabadhii, waxaan u baahanahay inaan wax ku idhaahdo. Wiilkii, horay u soco. Gabadhii, waxaan rabay in aan kuu sheego hal shay. Gabadhii codkeeda ayaa la ciifay. In uusan dan ka lahayn hadalkeeda ayay u malaysay. Wiilkii, idheh waxa aad idhihi lahayd. Gabadhii, ma fiican tahay? Intaas marka ayay tidhaahday. Aamusnaan ayaa ka soo hartay, ilmada ayaa mar kale wejigeeda ka qubanaysay. Telefoonka ayay dhigtay waxayna go'aansatay in ay fariin qoraal ah u qorto. 6 saacadood ayaa ka soo wareegtay. Telefoon ayaa soo dhacaya. Waxaa qabtay gabadha hooyadeed, waa wiilkii oo doonaya in uu la hadlo gabadha. Hooyadii waxay u sheegtay in gabadhu uu gaadhi ku dhacay mar ay u socotay si ay u aragto wiil ay asxaab yihiin, haatanna la dhigay isbitaalka. Wiilkii baa soo degdegay si uu u arko gabadha. Wuxuu soo gaadhay isbitaalka isaga oo ku qaylinaya magaceeda. Gabadhii indhaheeda ayay kala qaaday, iyada oo leh, maxaad sidaa u samaysay? Wiilkii ayaa ku jawaabay, wadno xanuun ayaa i hayay, mana haysto maalmo badan oo aan ku noolaado. Ma rabin inaan ku dhaawaco. Inanta ayaa indhaheeda isku qabatay, mar dambe ma toosin oo sidaas ayay ku geeriyootay. Wiilku wuu rumaysan waayey in ay taasi ku dhacday isaga dartiis. 10 daqiiqo kadib wiilkii waxaa ku dhacay wadno xanuun, wuxuuna u dhintay murugo.